بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka youtube-ka aslax abasaafi waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad u cajiib badan inta aanan guda gelin fadlan subscribe saar channelka si ay kugu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo kambaneelka taawa si aad ugu noqoto qofka ugu horeeya oo daawada sheerdhe si aad ula wadaagto asxaabtaada maanta waxaan ka sheekeyn doonaa markii oo bilaal la cabaabayay iyo markii zeed oo imaanayay oo bilaal abubakar gadanayay iyo markii diinta soo daahirayay iyo markii muslimiinta diinta ay faafinayeen oo la dhagax meynayay oo la tumayay oo la rafaadsanayay iyo hindo walaalkeeda xudayfa oo diinta nabi maxamed oo qaatay oo islaamnimada soo galayay filimka haddaan guda galno qaybta koowaad wuxuu ku dhammaaday umaya oo cabaabayo bilaal umayana wuxuu go'aansaday bilaal in laga saaro caloosha dhagax weyn maxaa yeelay afkiisa waxaan ahayn allah kama soo bixinin asagoo dhagax weyn caloosha laga saaray allah ma aanan joojinin afkiisa oo ka soo baxaayo dadka meeha ay joogaane way murugsanaayeen aad iyo aad ayaa la murugsanaayeen dhibaatada oo bilaal hinda waxay dhahday sidaan aad samaysay umaya sharaftiisa hoos uma dhacaya umaya addoommada ayaa koriyaa kadib waxaa imaaday zeed wuxuu dhahay umaya u kaadi xoogahoo yar kadib umaya wuxuu dhahay abubakar waxaa kuu zaa'idiyey 100 diinaar halihii aad ka bixisay bilaal kadib qofkan wuxuu dhahay u kaadi anaga sharaftaani ma ahan addoon la adbiyo inaan gadno zeed kadib wuxuu dhahay adiga maxaa ku soo hadliisayay qofkan adiga maleedihiiday malkiilaha ayaa joogaa 200 zaad ayaan kugu diraa umaya qaado ee na sii bilaal kadib waxay soo hadashay hinda waxay dhahday kani waa ra'yigii moxamed ee ra'yigii abubakar ma ahane waa maxay lacagtaan la iska dardaraayo oo addoommada sidaan loo gadanayo oo lacagtaan qaali lagu gadanayo waa maxay kadib bilaal asagoo xiran ayaa ugu istaagtay gacmihiisa kadib umaya wuxuu dhahay isii lacagta qofkan danka malihi ee qaata zeed ka bacdi caloosha dhagax ugu fuulay bilaal waa ka dejiyey qofkan waxaa la yidhaahdaa xudayfa waxaa go'aansaday inaa oo diinta islaamka oo galo oo yacni diinta oo gaalnimadan inuu ku baxo aabbihiisa wuu xanaaqay walaalihiisana way xanaaqeen way isdagaaleen aabbihii wuxuu dhahay ha isdagaalina aniga ayaa idin dhalay dhammaantiina ka bacdi xudayfa walaalkiisa wuxuu dhahay waad iska bixi kartaa ee iska bax gal diinta nebi moxamed ka bacdi aabbihiisa wuxuu dhahay wiilkayga maxaad ka dooratay diinta oo nebi moxamed wuxuu dhahay aabba diinta nebi moxamed waa diin oo nasiixa ah ka bacdi wuxuu dhahay iska bax waa baxay ka bacdi walaashiisa hinda waxay dhahday walaalkayga kaale xaggeed u socotaa hagelin diinta nebi moxamed sidee ayaa ku baxay xudayfa xoogahoo gadaal haddaan u soo noqono hinda aad iyo aad ayay ugu xumeed walaalkeeda oo galay diinta nebi moxamed maxaa yeelay hinda waxay ahayd dadka ugu waaweyn oo qurayshta oo madaxda ah hinda walaalkeeda aabbaheeda ninkeeda halahaasoo dhan waxay ahaayeen qurayshta madaxdooda ayagani aad iyo aad ayaa ugu soo horjeedeen diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii oo xudayfa ku soo biiray diinta islaamka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam shuyuukhda dhan oo qurayshta waxa u imaadeen abaa taalib waxay dhaheen abaa taalib maxamed naga casho maxaa yeelay waxaa naga afduwanooyaa dhallinyarada oo qurayshta kadib abaa sufyaan wuxuu dhahay abaa taalib maxamed muxuu u baahan yahay hadduu u baahan yahay lacag waan siinaynaa hadduu u baahan yahay madaxtinimo waa ka dhigaynaa hadduu u baahan yahay boqor waa ka dhigaynaa wuxuu u baahan yahay waan sii haynaa ee muxuu u baahan yahay ee moxamed arrintaa markii loola imaaday abaa taalib wuxuu u galay nebiga sal allahu alay wasalam inuu soo waraysto abaa taalib ka bacdi nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu dhahay wiilka walaalkayga dhalay waad maqashay qurayshta wixii ay ku hadleen anigana da ayaan ku jiraa waad iga oosisay naftaana waa ka oosisay ee waxaan aniga xamili karin dudka ha iga soo saarin shuyuukhda quraysha ayagoo murugsan waxay sugooyin abaa taalib wuxuu akhbaar ka keenayo nebiga sala allahu calayh wasalam abaa taalib waa soo baxay wuxuu dhahay wiilka oo walaalkayga dhalay wuxuu dhahay aniga ma dhaafaayi diintan kama tagaayi umana u baahni inaa boqornimo laygu dhigo imaal laysiiyo ama sayid laygu dhigo ilaa iyo xaqa ka soo daahiro diinta ma dhaafaayi horay ayaan u soconaa ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam kadib zeyd waa soo orday waxa uu imaaday asxaabtiisa inuu u sheego diintii hoos lagu haayey inaa la kor qaadsiyo oo la faafiyo diinta waa inaan faafinaa ayuu dhahay ee maxaan u fadhisiin soo baxa diinta waan faafihaynaa ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
asxaabta ayaga oo tawxiidka ay haayaan kadib abaajahal oo ku jiro kacbada gudihiisa ayuu maqlay tawxiidka waa yaabay kadib banaanka ayaa u soo baxay wuxuu arkay abaalahab dadkii isku soo aruureen oo ay deganaayeen maka oo gaalada ay ahaayeen kadib waxaa loo dhahay ma yeeleysiin dadkan oo qurayshta ah oo ay ka baxeen diinteena oo ay galeen diintii nabi maxamed inay ku soo noqdaan maka oo maka idin deganaadaan ma yeeleysiin dadkii waxay dhaheen maya ma yeeleyno ee soo baxa mubaaharaad ayaan samayhaynaa waan dilaynaa dadkaas oo dhan ayagoo tawxiidkii ay haayaan dadkii waxay bilaabeen dariishada inay soo koraan oo dhagaxyaalo ugu soo tuuraan iyo waddada inay u dhigaan geedo oo dab ay ugu shidaan sidii u soo marin intaasoo dhan waxay u yeelayaan inay ku soo noqdaan diintii nebi maxamed way cabaabooyiin dadkan qofkan wuxuu sugayaa ilaa inta ay ka soo gaaraan markii halkan ay soo gaaraan ayaa dabka shidaa kadib abaalahab wuxuu amray inuu shido shid ayaa loo dhahay dabka waa shiday asxaabta markay arkeen dab in la shiday waxay dhaheen si fiican ha loo ilaaliyo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay nebi maxamed ayaa la jiraa markaan asxaabta kaligooda ma aha nebigana waa la jiraa nebiga laakiin lama arkaayo dadkii dhagaxyada weli way soo tuurooyin تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد walaalahayga markaan waxay soo degatay aayaddii uu ahaa tabad yadaa abii lahabin wa tabba maxaa yeelay abaalahab iyo xaaskiisa waxay ahayd tii oo dabka ay shidaysay iyo nebiga ay dhigaysay oo dhagaxyo dhulka ay u dhigaysay markaas ayaa tabad soo degtay kadib asxaabta dib uma naqanin hor ayay u socdeen mana cabsanin ilaahay ayaa garab galay asxaabta waxay u soo socdaan maka albaabkiisa qofkaani wuxuu amray amniga in la adkeeyo asxaabta ma herin horay ayuu soo socdaan dadkii way dhagax meynooyin waana garaacooyin qoftaan aad u jeedaan waa abaalahab xaaskiisa ayagana dhagax ayay tuuroosaa wamra'atuhu xamaalata alxatab ayada ayaa loola jeedaa jacfar intuu xanaaqay wuxuu dhahay carabta dhan markhaati ha ku noqdaan waxa anaga nagala samaynooyo kadib qofkan wuxuu dhahay abaa sufyaan dadkan aan qabano ayagoo dhan tiradoodii waa 30 qofood abaa sufyaan wuxuu dhahay maya dadkan anaga kacbada agtiisa wax kama yeeli karna haddii kale carabta dhan ayay gaarayaan ninkan waxaa la amray in loo furo kacbada waa loo furay kadib jacfar wuu xanaaqay wuxuu dhahay guriga ilaahay guriga ibraahim guriga carabtoo dhan miyaad naga celinaysaan run ahaantii muslimiinta aad ayay u yar yihiin laakiin dadka dabaraacooyin ayaa badan dadka dabaraacooyin waa gaalada ugu dambayntii waxay imaadeen maka albaabkiisa قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبعدوهم عن الكعبة ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة waxyar gadaal haddaan u noqono zayd wuxuu dhahayay qul yaa ayuha alkaafiruun zayd suuraddii ma dhammaynin ka bacdi waxaa imaaday abaajahal waa kala tuuray filinkan waxaa lagu turjumay stuudiyo saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada Padova iyo walaalkiina aslax aba saafi Ilumina? Lai!